لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. والله رجينا وباهم بني واحد برتان والله بالله رجيني إذا كان وباهم بني واحد برتين حتى ما حد جاهل لماذا إنك بحنا ربناي أو دلك يكون نقول هرمر جانو أو مال وبان لسن لكن ما قبل كرنو أنا قلنا نحس كنا هاي زيادة مرة بالله هايو هذا قف قبر هي وحقه ويلك بحق وإنه ماشي جكذا قلا أو جكذا يكت أما ألعاب قاضو أما ألعاب تدقو وشيء مهمة هو يوينك قالت بين باكل هني تهرت مكتين هرت خلت كوين هو إذا هذيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود هذا channel AJ فضنا ولا ليه قالي ضدك نوع عصب أو فيديو كان كو عصب أما channel كين كو عصب هاي اللي وين ناس سبسكرايب نو سارتين أنا فرح صرنا هاي سبسكرايب كذا نو سارتين ولا واحد لقوا فرحه وفري بعش عص لنا قري يو channel كين كله family AJ فضنا family vlogs هذه على أوباستين أنت فيديو كان سي كلين وحن وهبلينيا ولا ليه غالي قوسك قروح تي أنا وهبلينيا وحين قارن بقولكي عيار مها ديل مقارن دال بدني مقارن لما أنا في عام ما شاء الله هذه أذني وهبلينيا فاضنا واني هبلينيا سي شالي هذا أو فيديو وعرفنا هذا وفرحنا ما شاء الله مركو حني لنا هبليو فيديو كان سي كلو مرك ما أنت توبيك كان لنا واحد دمرك إني واحد برتام مهم أرنتاس وأرنتا marka saa u jeedaan sawirta u soo galeen wax kale maaha videogan aan ka hadlayo away maalin laxaas walaalkeeni sheekheeni sheekh maxamed kenyawi mar wuxuu ka hadlay muxaadaro oo mar qabanayay wax mar hore way laakiin muxaadaradu ka hadlayay muxaadaradii wuxuu yiri dumarka inay wax bartaan maaha wax barasho anyway wuxuu yiri waa aragteen inay wax bartaan maaha marka qalad baa masaxba sheekh hortu ورالي قلنا وكسر بحي وحودا وحوا قلت وأسابة كشيء كيبه وابا عرفتين فيديوي مركا عرفت الشيخ حتى مكو حساب سنة لك عرفت هذا وحون كلي فيديو كان داود فيديو مركان داود كومنت كان أركي ضد بدن أو الشيخ وحيري كوقن عين مركا الشيخ تيسو بخيرتي وحيري وابا وقلت كوسمي وقرتي مركا لكن الشيخ نع وكوب نع في عنا نع جورك إنه جور سداني وحال لكن aan sii galo videoga ka sheekeyn doona haduu la yiraahdo marka arintii comment-ka marka aqriyay dad badan oo ku raacsan sheekha aan fahmi way marka arinta oo dumarka inay wax bartaan muhiim ah arintaas inaan la sheekaysta rabaa iyo sababtaan rabaa inaan ogaado Soomaalida waayo maxaa keenayo inay fikirkaan ay aaminsanaadaan dumarka inaan wax baranin taa ilaa hadda maskaxda ay galaaday waan fahmi lahayaa marka waxaan idakan waxaan jeclaan lahaa inaad comment-ka igu soo qortaan why Soomaalida waxay soo aaminsan yihiin iyo taan fahmi waayo aan ilaa hadda ku mashquulaa mugto ilaa hadda waa la yaabana marka video aan sii galay dumarka ma muhiim baa inay wax bartaan shakhsiyan hadda hadlo waa shay aad iyo aad u muhiim ah diiniyan waa muhiim maxaa dhacay waxay muhiim u tahay carruurtii hadda naga soo qaadayaan hooyo ama qof dumar hadday wax barato aad inay waxay muhiim u tahay waa koob hooyo noqonaysaa hooyo markay noqoto carruurtii 99% ay u badiyeen ay la joogaan waa hooyadeeda la joogaa Soomaa okay hooyo aan wax baran hadii la joogaan ma carruurta iskuulkooda markay tagaan yaa fahmi kar waxay barteen ama ina la soo baray edab darnimo ama la soo baray wixii la soo baray yaa ogaan karo yaa dhaxgali karo أبا شقو جراي أبا هاد وحو جرا شقو أبا دو شقو جرو يا أغانا يا عروت سو هوي سما هوي أنا سقط عروت A to Z سما مالك هوي دي لسقط هادين واحد برنين سي أغانا سا ولا قيانا يا هتكبر ويل كده دي لبرايو وح أو دينيا حتى حارانته هادين واحد إيه برنين سي أولو سعوني سا shaygaas waa shay muhiim ragga Soomaalida qaasatan ama dadka aaminsan fikirkan oo dumarku wax ma baran karaan idinkaan ii sheegayay taa iga jawaaba ma miya jeclaan lahayd carruurtaada in la baro wax diinteena islaamka oo ogoleen na la baro because adiga ma joogto shaqo jirta hooyadii yaa joogto hooyadii wax ma bari karto because wax ma taqaanto ya hooyadii wax ma taqaanto wax ma bari karto Soomaa
laakiin hooyada wax baratay wiilkeeda ama caruurteeda way daba taagan tahay ama gabadheeda maxaa dhacay waxbay baratay haye hooyo maxaa lagu soo baray kaale itus waraaqda itus wax lagu baray itus waxay dhaysaa kaale itus inta ii soo dhig wixii ay tusad way fiirinaysaa sooma waa sax sooma markay fiiriso wixii way la socotaa marka hooyada wax baratay inay muhiim u tahay inay sheegayaan xaaskeygi hadda Fatna saa u jeedaan sawirkaas waa jaamacadii markay kasoo baxday anyway jaamacadda way dhamaysay maanta wiilkeeni yar oo Zayn wuxuu qabaa autism ani xabad ma ka ogeyn bay ma ku sheegay xabad autism waxa la ma aqoonin ma baa isku sheegaya autism wax la dhaxay ma aqoonin haddana Faaduma soo saartay iyadoo soo saartay haddana waxaan dhahayo nagad maxay sheegaysaa hadee waxaan ku yiraahdaa waa carruur caadi oo soo koraya carruur caadi hadda soo koraya oo iska fudud weey Soomaalida waa iska fududna hadda caadi waan ku yiri Soomaalida fudud wiilasheeni aniga saas aan jiraan ku yiri waa fududahay laakiin meel ay wax ka fikirtay fiiri way soo ogaatay wax caawi maxaa wax barasho hadda oo qoon wax barasho dhakhtarka iyo iskuulka lagu soo sheegi lahayd Soomaa wax caawi waa waxay soo baratay markii dambe weli inaan harin waxay ugu soo bisay video walba ii soo dir jirtay video to video oo ka sheekeynayo ama ka muuqaal la tusayo autism-ka carruurka leeyahay qiimaha ay leedahay hooyo inay wax barato waa horta taa video hatta ma harin miga harin ani shaqada iska tagay waa soo noqonay maxaa dhahay waxa soo shaqeynaya 16 saacadood 8 saacadood bar shaqada iska tagay waa maana wiilkay iska babooday arki jiray Soomaa wiilkay iska babooday jiray ana normal yahay carruur caadi oo laakiin qeeli dhigan u garaay qeeli wuu laakiin aniga markii waxaas dhahay waa qeelada waa iska caadi laakiin iyada maxay tahay question mark saartay wax baa qaldan maxaa qaldan haddana baari lahayn ee su'aashaas isweydiin lahayn ee investigation gal lahayn see ku ogaan lahayd qofka investigation galay waa qof wax bartay qof wax aqoonin meel uu ka bilaabo aqoonin wax ma baranin ma isweydiisan carruurteeni waxay jalka ugu badan yihiin horta أنا حكى لي هذا الصومالي مكان لي غربة كان لي ولا حتى ما حكيني إن جالك وبطن والله شيء كالحياة ما هو بطن جالك هوي أرتب تهدان قال حتى والدك كلا تجان والدك عرورتك ورهينتا يا وحكة هور حياة قفك واحد برنا حتى وإلى لك عرورته لكن وحلاك في communication اسفهم الآن حتى wax muhiim ah inay bartaan dumarka maxay maarayso caruurtii waxay kala noqonayaan xataa language barrier kala fogaanay marka muhiimka wax barashada hadda qurbaha waa imaanay caruurteen hadaan anaga ilaalsanin yaano ilaalinay qaasatan raggan waxaan leeyahay walaaliyayga qaaliga ah fikirka la dhahay Soomaalida aan ka maqlo mar walba oo waalidiin xataa dhahay arkay oo dhahayaan oo maxaa wax ka baranaysaa rag baa u dambeynaysaa Allahu akbar rag baa u dambeynaysaa maxaa wax ka baranaysaa ma fikirkan aan fahmi waay ilaa hadda maskaxda iga gali weysay rag baa u dambeynaysaa waxa baran xaga naga soo gashay baashaan waa burbur oo wax la burburinayo ummad dhan oo Soomaaliyeed xaga naga soo mar anaga xaga naga burburinayo meel kale ma dhinac dumarka leeyahay sababtana ma taqaantaa waxaan kelmadan oo kale kelmadan la dhahayo waxa barnin rag baa u dambeynayso markaas maxay maanaysaa gabdhihii dhan way yaabayaan ya amaanayaan gaalkii waxay dhahayaa gaalku arkaysaa gabdhoodu waxba baraa way u ogolyihiin xaqii islaamka ay ku lahaayeen xataa ma la siinayo taasay noqonaysaa xaqii islaamka diinta islaamka xaq bay ku leeyihiin dumarku waxaa la siiyey 3 jeer waalidka special hooyooyinka 3 jeer maxaa dhacay haddana dumarku wax ayna barin hadda hooyadeeni waxaan way markaa ka hadlayaa hooyadeeni waxaan ka hadlayaa Khadiija Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam xaaskiisi qof waxay ahayd business woman Soomaa qof business woman ah
waa qof wax baratay waa qof wax taqaato wax kala taqaato hadday wax taqaato maskaxdeeda ma ku socoto mugta waa la soo baray wax bay baratay haddayna wax baranin businesskeeda mayna qaban lahayd soo ma marka waxaan rabaa bulshooy horta fikirkaan inaa iska daysaan dumarka haddayna guursanin guurka waa muhiim waa diintaada haaf adoo diintaada ka mid tahay waa haaf oo waxyaalo badan kaa qabanaysaa guurka waa shay muhiim waxyaalo badan aa la qaban karaa waa guursan kartaa wax waa baran kartaa waa guursan kartaa horumar waa gaari kartaa waa guursan kartaa ganacsiyaa furan kartaa ilaahay ma adkeenin kelmadda ugu horey maxayd iqra rasuulka cala waxa le iqra aqri sababta loo dhahay maxaa waay cilmiga waa shay muhiim ah waalidka inay bartaan iyo bulshada dhan aday khaasatan ana dumarka had ka hadlayaa dumarka inay wax bartaan waa shay aad u muhiimsan walaalayaal qaaliga iska daaya kelmadan la yiraahdo dumarka iyo wax baranin inay wax bartaan waa shay muhiim ah maxaa dhacay caruurtaada u muhiimsan tahay ana xal hadlayaa ragga la hadlayaa wiil qaastan oo aaminsan inay wax baranin inay horumar gaarin maxaa dhacay horumarka waa shay aad iyo aad u muhiimsan la gaari karo waxbarashada waxyaalo badan haddana qaban lahayd meeshaan maana joogi lahayn hadda qurbahan oo qaxootiga ku dhahay maana joogi lahayn hooyo dhisan hadaa haysan lahayn anuuna meel ku gudbaynin maxaa dhacay dumarka waxyaalo badan aa laga reebay waana ognahay laakiin walaalaheygii maxaa dhacay diinteena islaamka ah oo horumar ku gaari karnaa xataa dumarkeeni hadda si rasmi oo diinteena ugu dhaqmi lahayn wallahi si rasmi horumar gaar leh dumarka xaqooda waa la siin lahay mugto laakiin ana waxaan sheegayaa fikirkan la yiraahdo waa comment-ka ku qoray comment-ka sheekh aan ka arkay sheekha videogiisi comment ku qoray ilaahay ka baqa gabadha ma jeclaan lahayd inay wax baran ma jeclaan lahayd kulli asaas fikirkaaga waxa uu arkay gabadha inay jeclaan lahayn oo 15 jir markay gaarto iska guuris 6 sano 7 sano isqabayaan oo kala tagaya hadhow meeshaas ku rafaadaysaa rafaadkan maxaa u keenay cilmi la'aanta laakiin qof dhisan hadday meesha soo gasho qof dhisan hadday soo gasho waa libaax dhalo wey horumaray gaaraysaa horumar xataa quality yeelinaysaa quality oo waalidnimo ah waalidnimona waa shay muhiim ah dhinaca nalaga soo galay anagana qaasatan hadaa Soomaali nahay waa dhinaca dumarka kii gaal noqdo waa dumar kii ajnabi raaca waa dumar sababta ma taqaantaa wiilasha maxay ugu ordayaan wax kale ma fikirkaan aan aaminsanahay aan iska bedelno walaalay qaaliga fikirkaan aan iska bedelno fikir fiican maaha wax fiican maaha wax diinteena xataa ugu galba maaha yaa wax la baranin dumarka iyana wax baranin والله very حنلجي كامدي very debatation والله very debatation أد لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم والله رجينا وباهم بني واحد برتام والله بالله رجيني إذا كان وباهم بني واحد برتين حتى ما حدا جاهل لماذا إنك بحنا ربناي أو دلكي نكون هرمر جانا أو مال وبان لسنا لكن ما قبل سكرنا أنا قلنا نحس كنا هاي زيرو علم العانت دبعتها سهلة والله دبعتها سهلة علم العانت رجوي والدين تقارن إلهي كبقاء قبل مرة بالله هايو أنا قف قبر هي وحقبه ويلك بحق وإنه مش جكذا قلا أو جكذا يكت أم ألاب قاضو أم ألاب تدقو وشيء مهمة هو يوينك قالت وين باكل هني تاورت مكتينورت خالتك وين هو إذا أذيك هوين والدين تدمرك إيه كذا خالد ولا جالس والد ويلك كذا كله وعلاب تقدح أنت يقارن أنت قصب معه علاب تدخل ريا كان علاب تقاد لكن قبل كلينا ده ما موت ريا كان هذا سكولي عاد ويلك قبلنا كان جوج كوريك جوج علاب تدخل كوريك نظيف labada waxa laga yaabaa xataa inay labada iskuul aadaan isku mar soo noqdaan hadana gabar shaqlaysa gelnaa asagana waxa meeshaas PlayStation u ciyaaraya ma xaq ma wallahi xaq ma xaqna ma
laakiin waalidka qaladkaaga inaa saxdid waaye maxaa dhacay khaasatan dadka qurbaha jooganka la hadlayaa caruurteen hadda beerta waxay u galeen wax kale maaha waa arrintaas cadaalad dara la cadaalad ma cadaalad daro wey marka arrintaa inaan ka saxno waaye hadduu ilaah yiraahdo marka waxaan leeyahay walaaleyga qaaliga aad aad umaasatay videogan aad daawateen hadda videogan ka hesheen walaalayaal thumbs up comment-kan xagga hoose igu soo qora sababta oo fikirkan ay Soomaalidu u aaminsan yihiin dumarka inay wax baran marka aad aad umaasatay aan daawateen hay loobina subscribe-kana noo saatiin channel-kan iyo channel-ka family-ka marka aad aad umaasatay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.